بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمحمد الله سبحانه وتعالى نقل يا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحان إن شاء الله تعالى هل كان سياسة دين دونا تحناء كلا دوان وإنت بدن بشهر رمضان بعدما أن كجرنو inoo bilaabanayana inaynu bisha Ramadaan jawaanib fara badan oo kala duwan oo islaamka ah inaynu isu soo dayno ayaynu sameyn doonaa insha Allah ta'ala. maanta xalaqadan ugu horeysa si kooban waxaan u tilmaami doonaa Ramadaanka iyo qiimaha uu leeyahay, soomka iyo qiimaha uu leeyahay ayaan si kooban u tilmaami doonaa insha Allah ta'ala. إلهي سبحانه وتعالى مركو إنه تلمامي وحاولي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ساس رب الله سبحانه وتعالى halka waxa muuqata Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu in faraya inay nusoono wuxuu inoo tilmaamay waxyaabo la yiraahdo xawaafiz ama musawwiqaad, waxyaabo in jecelaysiinaya, waxyaabo inagu dhiirigelinaya ayuu Allah inoo tilmaamay subhanahu wa ta'ala. waxyaabahaas wuxuu Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran, bishan ramadan waa bishii quraankiina la soo dajiyay wasiiqadii iyo fariintii xagga samada ka timid, xagga rabbi ka timid ee dhulka u timid ee ugu dambeysay bishii la soo dajiyay weeyaan. sidaa darteed bishaas ixtiraam ay idinka mudan tahay ayuu rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa qayb weeyaan. qaybta labaad Allah wuxuu tilmaamay subhanahu wa ta'ala in uu yahay ayaama macduudaat, maalmo yaroo kooban inay tahay. marka lama oran waxaad soomaysaan 6 bilood, waxaad soomaysaan 9 bilood, waxaad soomaysaan 4 bilood. ayaama macduudaat waa maalmo yaroo kooban weeyaan, ama waa 29 maalmood ama waa 30 maalmood weeyaan. marka haddana waa musawwiqaad kale ama waa xaafis kale oo ku dhaqaajinayo oo Allah uu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala maalmo yaroo kooban weeyaan. saas rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inagu dhiirigelinaya arinta iyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. arinta saddexaad Allah wuxuu tilmaamay subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. oo waa maxay soomku idinku kelima aha. haddaad muslimiinta tihiin, haddaad mu'miniinta tihiin, idinku kelima aha. ummadihii idinku horeeyay ummado badan oo kamid ah ayaa soomi jiray ilaa iyo maantana bini aadamku haba kala duwanaada qaabka loo soome in badan oo kamid ah way soomaan yani. laakiin arinta iyada marka Allah hadana wuxuu inoogu tilmaamaya subhanahu wa ta'ala inay tahay xaafis saddexaad ama wax kale oo saddexaad oo ku dhaqaajinaya. oo waa maxay bala lagu qaba baas mal oo kale bay Soomaalidu oran jirtay, bala ma aha, laakiin waxa weeye waxaan kali kuma tihid adiga wax lagu saaray kaliga ma aha. waa wax bini aadamka in badan oo kamid la soo saaray, in badan oo kamid ay sameynayeen, in badan oo kamid la tijaabiyay inay dani ugu jirto aakhiradooda iyo adduunkooda weeyaan. marka kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladhina min qablikum ayuu rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala. oo waa arrin kale oo saddexaad oo inoo tilmaamaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ina jecelaysiinayo bisha Ramadaan soomkeeda. arinta afraad ee ina jecelaysiinaysa waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatu min ayaamin ukhra. qofka idin kamida ee xanuunsan ee aan soomi karin qaba xanuun inta badan la bartay ama la rajeeyay inuu ka bogsado xanuunkaana hadduu soomo xoogaa dhibaato inay ku noqoto ay suuragal tahay, qofka isaga ah ha iska afuro. fiiri, qofka isaga ah ha iska afuro oo maalmo kale ha soo qaleeyo ayuu rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala. qofka muxuu ah musaafirka ah ee safar ku jira safarku hadduu xataa nooca ugu raaxada badan yahay, mashaqo iyo culays iyo rafaad iyo tacab ayuu leeyahay, qofkaas musaafirkaana ha iska afuro maalmo kale ha soo qaleeyo ayuu rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala. marka waa maxay waa arrin kale oo afraad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu dhiirigelinayo inaan soono. Allah inoogu dhiirigelinayo rabbi subhanahu wa ta'ala. arinta shanaad ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu dhiirigelinayo inaan soono ay keenaysa waxa weeyaan la'allakum tattaquun, taqwa inaad ka dhaxashaan.
taqwo ayaad ka helaysaan waxaad ka helaysaan u dhawaansho ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka helaysaan raadi ahaansho rabbi ayaad ka helaysaan waxaad ka helaysaan raxmad rabbi ayaad ka helaysaan waxaad ka helaysaan dembi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka helaysaan janno ilaahay subxaanahu wa tacaala lacallakum tattaquun taqwo ayuu idin dhexal siinaya taqwaduna marar fara badan sidaan soo tilmaanay waxa weeyaan عدم التعدي ظلم إلى سنجر ساسات كهليسان أيو رب الله سبحانه وتعالى وأرن كلاته وإله سبحانه وتعالى إنوت المامية أو إنه قد رجلينيسا أما إن جعليسينيسا إن صونه ويا إله سبحانه وتعالى آياتها مركو تحوحة المامي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي سبحانه وتعالى صوبتا وحصل الأصمينيو أصومك إذين فريو أصومك محوها إذنكو ولايها صوما حدنا وحاس أو مسوغادا أما وحاس أو محدي رجلنا الله إذنكو صمينيا سبحانه وتعالى يأصل كتكاليف واجبات كإلهي أوردن يريد الله بكم اليسر إلهي فضيت بإذن للدونية إلهي سبحانه وتعالى فضيت أي إذن للدونية ولا يريد بكم العسر إلهي سبحانه وتعالى عليس إذن لما الدونية محاجر سدا درته صومك أن صوميناه culays ma aha shay walba waxa lagu qiimeeyaa faa'iidadiisa marka la fiiriyo faa'iidada laga helayo marka la fiiriyo wanaaga ku soo noqonaya wanaagaas oo ah waxaan la yiraahdo spiritual connection-ka iyo xiriirka aad la yeelanayso la sameynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la fiiriyo dambi dhaafka aad ka helayso ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la fiiriyo naxariista aad ka helayso ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la fiiriyo ridaha aad ka kasbanayso إلهي سبحانه وتعالى مركا الله فيريو جنة أتكهليسو إلهي سبحانه وتعالى مركا أنت أصلا الله فيريو وحويان وفضيل حتى هدي حوجا دال إيو رفاد إيو ويركانو مركا الله فيريو فإذا ديسا واحد كهليسا كبدا صادرت أدوح عليه سماء هاي أدو القاضب رب الله سبحانه وتعالى وحاجة ورب إنه شيء حاجة كلاته وحو إن بريا صوم واحد ديسيبلين ليلي بو إن فريا ليلي ووحو إن فريا إنه cuntada iyo cabitaanka iyo gogolgalka ama waxaan loo muxuu la yiraahdo xiriirka ka dhaxeeya dumarka iyo ragga ee ku saabsan jinsiga ama gogosha ku saabsan in la joojiyo waqti muayana ila laga gaarayo waqti kale oo muayana marka layligaas la ina faraya waa layli waa tarbiya marka madraso oo layli ah oo la inagu layliyo oo ah qofkii layliga aqbala qofkii cuntada iyo cabitaanka oo bini aadamku uu jecel yahay oo u baahan yahay gogolgasha iyo galmoodka oo bini aadamku uu jecel yahay oo u baahan yahay oo xalaal aha iska daaya saacadahaas waxyaabo kalena uu iska dayn kara waxyaabo kalena uu dhaafi kara marka waa tarbiya dhan kaleeto وإلهي ونقول ليلي سبحانه وتعالى مركا وامحي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي رب الله سبحانه وتعالى انت مركا فيريسو ولا لها يوم الله وحي النوت المامية حوافز يا وحي نقول نقاجنية إن نصورنا أي الله النوت المامية سبحانه وتعالى كوجد بيان كسر ختمي أردت الله نقول نقاجنية وحويان كتب عليكم الصيام وفرض الله إنه فرض يا سبحانه وتعالى إلهي وحق إن فرق تكاليفتي سأنا والتشريف ويان محاجر إلهي سبحانه وتعالى عدة تكلفة صاروا واجبات كصاروا الله وشرف سبحانه وتعالى حيوانات كتكلف الله ما صاروا waxa marka bini aadamka loo saaraya taklifada bini aadamka waa sharaf weeyaan bini aadamka waa la qiimeynaya bini aadamka ilaahay intuu qiimeeyay cirkiga dhulka inta u dhaxaysa wuxuu uga dhigay khaliif yaani muxuu ahaa oo u nahay khulafaa Allah fi al-ard ayaynu nahay yaani marka ilaahay markuu khaliif ka dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulkii ku sakhiray koonkii ku sakhiray ilaahay subhanahu wa ta'ala wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an minhu waajibka la insaaraya waa min baabi tashrif weeyaan marka ilaahay uu inagu sharfay إلهي ونقول الله ذي سبحانه وتعالى بركة إن أنا أرجنه شرف إلهي إن يتاعي صومك عن صومينه إن أنا أرجنه محوها النعمة إلهي نقول نعمة استئنا يتاعي صومك عن صومينه أيام دورنا بإذن الله تعالى أرنت أسمرك والله جوا مرمان إن ساء فهمنه ونساء قرنه ولي بمرك عن صومينه مركي إن درينه محوها قرب إلى الله سبحانه وتعالى ودوان شيء إلهي سبحانه وتعالى إن درينه إلهي إنه نشرفي إنه نقيمة إن درينه أيام دورنا بإذن الله تعالى أرنت الله بعد دورنا إن دول استاجوا وحويه وامحي هدفك وجدده لو صومي وامحي محاجرة وحويه هدفك وجدده الصوم كان لجليه معها فرض الجوع والعطش إنسان كان موقفك بني آدم كا إن جاء يؤون دوش لجا ساريو معها
الحرمان الحسي للصائمين dadka sooman in waxyaabaha u baahanayeen laga xirmaaninayo ama laga joojinayo ujeedadu inta kaliya ma aha oo aad cabitaankii cuntadii iska dayso xilliyada qaar kood lagu diido goolgalkii aad iska dayso wixii kalena aad shobka xasato ujeedadu sidaa ma aha ujeedadu marka waxa weeye inuu taqwa ina dhaxalsiiyo inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin ilaahi wuxuu ka aqbala subhanahu wa ta'ala kuwa muttaqiinta Allah ka cabsada ayuu Allah wax ka aqbala subhanahu wa ta'ala kuwa qalbigooda ay ku weyntahay ilaahi subhanahu wa ta'ala kuwa qalbigooda ay ku weyntahay yawm al-aakhirah maalinka aakhirada ee xusuusanaya yawma yaqumu an-naasu li rabbil alamin kuwaas ayuu Allah wax ka aqbalaya subhanahu wa ta'ala wuxuu wax Allah ka aqbalaya kuwa xusuusanaya minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra in dhulkan markii hore laga abuuray dhulka aynu ka nimid isaga dib aad ugu noqon doonto isaga laga soo saari doono kadibna uu jiro isla xisaabtan rabbi la hor istaagayo kuwaas ayaa wax laga aqbalaya kuwa soomkooda uu ka celinayo xumaanta kuwa soomkooda uu ku hor istaagayo gafafka kuwaas wax laga aqbalaya marka ujeedada soomku waxa weeye saan sheegnay waa layli weeyaan waa layli marka saa nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam rubba saa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-juu'u wa rubba qaa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar farabadana qof sooman oo soomkiisa aan ka faa'iideynin waxba gaajo mooyaane farabadana qof habeenkii ku soo jeeda inuu cibaado ku soo jeeda ay u muuqato oo cibaado waxba ka helaynin waa maxay soo jeed iyo rafaad mooyaane saadarteed ba waxaan rabnaa si uu soomku uu qiimo u sameeyo si soo jeedka habeenkii ay qiimo u yeelato inaynu ilaahi subhanahu wa ta'ala uu soomku inoo noqdo layli inaga celiyo xumaanta inaga joojiyo xumaanta inaga hor istaaga xumaanta ayaan doonaynaa biidnillaahi ta'ala Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala isagoo arintaas dhan kale ka tilmaamaya alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayuu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ayyukum ahsanu amala kuwa amalkooda ugu ikhlaasan yahay ugu daacadsan yahay ugu alla darti u yahay amalkoodu haddana amalkoodu uu waafaqayo shariicada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafaqayo wadadii iyo nahjiga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam marka inay cibaado inagu xambaarto iyo layli ayaan doonaynaa cibaadadu waxaan rabnaa inay san dhicin waan soomanahay laakiin waxaan ku afuraynaa bil haram aan ku afuraynaa waan soomanahay waxaan aan badinaya الغيبة حنتها بدينيا وان صومناهي النميمة اسكو دردر بان سمينيا وان صومناهي يعني cuntadii waan iska daayay laakiin afcaashaydii kale iyo khuluqaygii kale waxaan bedelay ma jiro waxaan wax ka bedelay ma jiro haday noqoto been abuur haday noqoto xan haday noqoto isku dirdir haday noqoto dhac haday noqoto boob haday noqoto dhulmi waxaas oo dhan baan shabkaxsanaya waxaan leeyahay waan soomanahay arintaas sax ma ah ujeedada soomkuna sidaa ma ah sidaa darteed ba waxaan doonaynaa soomku inuu noqdo soomka in ilaalinaya inuu noqdo ayaan doonaynaa biidnillaahi ta'ala waxa soo aroortay xigmad oranaysa udkuru muxuuha bijuu'ikum wa 'adashikum fihi juu'a yawm al-qiyamati wa 'adashihi waxaad ku xusuusataan gaajadiina aad maanta gaajaysantihiin aad soomantihiin iyo haraadkiina iyo oonkiina aad maanta soomantihiin waxaad ku xusuusataan gaajada iyo haraadka maalinka qiyaamada ku xusuusta ayaa soo aroortay waxaad ku xusuusataan haday saan sheegnay yawma yaqumu naasu li rabbil alamin waxaad ku xusuusataan yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillahi ku xusuusta yani sidaas marka inuu soomkeenu inahago in celiyo xumaanta inaga reebo ayaan doonaynaa haduu soomku inaga celin waayo man lam yad'a qawla zuuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haajatun fi an yata'a ta'amahu wa sharabahu qofkii waan ka tagin beenta iyo been abuurka xanta iyo isku dirdirka iyo xumaanta dhulmiga dhaca iyo boobka waxaas oo dhan ee xumaanta qofkan ka tagin ilaahay dan iyo xaaje kamale inuu cuntadii cabitaanka iska daayo xajir ujeedadu inaan cuntadii cabitaanka iska dayno ma aha yani marka soomku inuu saa inoo noqdo ayaan doonaynaa biidnillaahi ta'ala oo ay tahay lagaba maarmaan waxa soo aroortay oo in fara badan la tilmaamaya oo dadkii hore wanaagsana ay tilmaamayaan in qofka la doonayo soomkiisu maalinku sooman yahay iyo maalinkuna soomanayn inaysan isku mid u noqon ay kala duwanaadaan ayaa la rabaa oo Imam Jacfar as-Sadiq ayaa waxa laga wariyay xigmad cajiib ah oranaysa muxuu soomka yawma sawmika iyo yawma fadrika inay sinaadaan ma waa inay ku kala duwanaadaan sidaas la doonaya qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabeynaya xalaqadeena maanta waxa weeye soomkeenu micna ma sameeynayo hadaynan ilaahay qalbi nadiif ku qaabilin subhanahu wa ta'ala
إلهي وحان ربنا قلبي مركو ربي أركو وأرنا يا إلهي سبحانه وتعالى قلبي قاس أدونك وحو أستاهلا إن لو دم دافو أدونك وحو أستاهلا إن لو نحرستو أدونك وحو أستاهلا وحن أوسمي وحكف عن إلا وقبدلو أيان دونينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها رب الله سبحانه وتعالى قلبي سليم وكان نبت قالي حقد كان نبت قالي حسد كان نبت قالي عداوة كان نبت قالي نعيب كان نبت قالي شرك يا شبهات كان نبت قالي قلبي نظيفة أيان دونينا قلبي وحن دونينا واسعة أو محوها نظيفة أو إلهي سبحانه وتعالى أن حديثي سأببحا أيان دونينا قلبي قاس أساقا وكان النبي أرنا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي سبحانه وتعالى موقال كاغا مفيرنيو عضلات كاغا يحبناها يحوغاغا عتداد الله مفيرنيو درر كاغا قامنا الله مفيرنيو سبحانه وتعالى الله وحو فيرنيا بأعمالنا وقلوبنا أعماشنا عمل كان أن سميني إنه موافق سنيه شريعة إلهي سبحانه وتعالى موافق سنيه ودد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله درتي من لو سميه إخلاص من لو سميه داعدني من لو سميه إيوه قلبي عملك سميني قلبي عملك أبن بحياه قلبي أي كو انتهي هيبدأ إلهي عظمة إلهي سبحانه وتعالى قلبي أي كو انتهي ميهي قلبي النظيفة أو حقدي يا حسد يا عداوة يا نعيب كان نبت قالي أو كهفا ميهي قلبي محوها أي تضرع أي كم وقته إيو أبن بحد نفحات كأن حريصة إلهي سبحانه وتعالى قلبي سداسة ميهي أيال الدونية مركا قلبي نوع عاسى إن أنكو قابل له محوها بشهر رمضان أيان دونينا قلب النوع عاسين إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه له استاجنه أيان دونينا بإذن الله تعالى مركز إلهي وحنا قبل يا سبحانه وتعالى مركز وصوم كانوا واحتريا لذلك يا وحلا إلى هذا مركز القش كاني عبادته وحلا فيه عبادته وحوية وتعظيم الخالق وشفقة المخلوقين إلهي سبحانه الله كو أبورتي أولو وينيو oo la qadariyo makhluuqa alla uu abuurtay oo loo naxariisto marka ilaahay baan u soomanahay qalbigeena cadaawad baa ka buuxda nacayb baa ka buuxda sax ma aha qalbigeyga xaqdi baa ka buuxa sax ma aha qalbiga xasad baa ka buuxa sax ma wuxuu taray soomka noocaas ma jirayo sadarteed soomku wuxuu taro cibaadadana faa'iidada laga xaqiijinay ay u noqoto faa'iido أن تحقق التقوى إن حقيجسه تقوى إلهي سبحانه وتعالى إن حقيجسه القرب إليه ودوانش إلهي سبحانه وتعالى إن حقيجسه أي هفته بأخلاقنا الذميمة أخلاق ذا حن إن جهفته إن جد نقضه إن جد ظاهرسه أيا الله رباي يعني وحصاء ررتي حديث النبي الجوري صلى الله عليه وآله وسلم أوت الماميزة إن دتك اللود بالدافيو مركاسا لأوراني دتك قاركود عليا دمجود الله ما ضافيه حتى يصطلح إلى أيجو أكسه الشيان إلى أيجو أكسه الشيان أو شحنها عداودة نعيبك حقدك حسدك حمانته كبو زي كراهية أي كسر نظيفيات مركز واحد صور نظيفيسه أي صوم كان الله أقبليه أي صدقة أن الله أقبليه أي دعاء أن الله أقبليه أي قرآن أخذ كان الله أقبليه مركز صومكم على السمينية صدرت وحن يصدر دار منا فرصة قالية قال إن سوق قارسي سبحانه وتعالى فرصة قيمة بدن قال إن سي سبحانه وتعالى إن كفى إيدي سنو أنا أوقف إيدي سنو صد أوجه بون أوجه نكسن أنا أوقف إيدي سنو إنه محوها wax allaala wixii wanaaga aan sameyn karo inaan sameeyno in dib u dhigin wax allaala wixii muxuu gafa inaan ka dheeraano ka fogaano ayaan isfaraynaa biidnillaahi tacaala bishaan nafaxaadkeeda iyo naxariisteeda inaan u mabaxno ayaan isfaraynaa biidnillaahi tacaala intaynu xalaqo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wajazaakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh